waddan kasta oo dimuqraadi ah oo inaga inala madihi khilaafka siyaasiga ah sidoo kale had iyo jeer uu ka dhex jiraa waana wax ka dhex dhacaa laakiin waxay isku qabsadaan kaliya tirada iyo codadka doorashooyinka balse iskuma qabsadaan maalinta doorashadu dhacso marka koowaad horta bal khilaafaadkan waxoogaa ka odhanaya sideeda bannaanba khilaafaadku waa astaamaha guuldarrooyinka saa la socotaan mana keenaan wax dheefa oo ay bulshadaasi ka hesho balse kala guur iyo kala gurasho ayay khilaafaadka oo dhami keenaan bini aadamkuna kolba khilaafaadka inta ay ka cararaan waa hadba inta ay maslaxadda iyo wadajirka iyo danta ka shaqeeyaan waxaad ogaataan mar kasta oo wada hadal yimaado waxa yimaado isafgarad haddiiba uu isafgarad yimaadana waxa yimaado heshiis haddii uu heshiis yimaadana waxa yimaado xal haddaba mushkiladaha siyaasiga waxay u baahan yihiin xal siyaasi ah waxa la isku raaci karo haddii ay adkaato in la helo waxa furan waxa la isku raaci karo in la yeelo xaaladda Somaliland ee maanta way fiican tahay inaan dul istaago balse waxaan doonayaa in aan hoga tusaale kala dhinac ka soo geliyo waddan kasta oo dimuqraadi ah oo inaga inala madihi khilaafka siyaasiga ah sidoo kale had iyo jeer uu ka dhex jiraa waana wax ka dhex dhacaa laakiin waxay isku qabsadaan kaliya tirada iyo codadka doorashooyinka balse iskuma qabsadaan maalinta doorashadu dhacso mashaakilaadkeena ugu waaweyn inagana haysta waxa weeye inaynu farsamo ahaan isku qabsanno xilliga ay doorashadu dhacso haddaan isweydiino ayaa saameyn ku leh qabsoomiyadda doorashada way fududahay inaan si fudud u sheego cidda farsamo ahaan iyo qabasho ahaanba saameyn ku leh komishanka ah ka qaybgalayaasha xisbiyada iyo ururada noqonaya iyo cidda haddiiba khilaafaad labadaas oo kala dhex galo ama muddo xilad yimaado guursidoo kale inagoo waxaasoo dhan og haddana xeerarkeenna waxaa ku jira qabyo fara badan mudanayaasha golaha wakiiladan ka tirsanahay waxaa laga yaabaa aragti mukhtaar inaan kaga duwanahay dan baa na midaysa waxaa na mideeya mas-uuliyad wadareed haddana weli waxa bulshada saameeya inaan isla qaadana waa qayb ka mid ah waxa naga dhiman markaan si fudud su-aasha halkan ku taal lagu soo dhawaado 5 qodob baan ku soo koobi karaaba 5 qodob horta marka koowaad si kala qaybsanaan bulsho looga baxo waxa loo baahan yahay in dadkeenu bislaadaan oo aqoontoodu korto oo ay u bislaadaan dantooda maslaxadooda iyo wada jirkooda bislaantaasi waxay ku tusaysaa inanka dhalinyarada ah ee 20 jirka ah ee maanta mustaqbalka u baahan ee nolosha ku dayoobay uu kala garan waayo waar in adeerka in la geeyo wasaaradda biyaha iyo in biyo nadiif ah hesho midkee ku muhiimsan oo nasiib darro in su'aalaha caynkaas jawaabahooga dhalinyaradeenna markaad eegto baraha bulshada iyo falcelintooda in ilaa imika ay ku jaawarsan yihiin marka bislaan ayaan qodobka koowaad ka oran karaa qodobka labaad qabyaaladda saameyn xooggan bay ku leedahay kala qaybsanaanta bulshada qabyaaladdu markaan la isdiidsiinayn laakiin waxa isweydiin mudan dadkeenu maxay u rabaan in reerkooda qofka kursiga ugu sarreysa dalka ku fadhiisto iminka haddii uu cabdifataax noqdo madaxweynaha qaranka dee reerkiisa oo dhani ma nimcoobayaan jannana ma durduuranayaan laakiin waxaan isleeyahay waxay u rabaan kaliya inay ku faanaan oo yidhaahaan reerkiina reerkayga xukuma noloshuna ku faan way ka weyntahay waxaynu u baahannahay in sidaas si ka duwan aynu u wajahno oo qabyaaladdu marbay waxtar leedahay marka loo eego kumilanka dimuqraadiyaddana khatar bay leedahay imika haddii dhakhtar lagu dhigo waxaad u baahan tahay faleebo waxaa laga yaabaa ka ku xiga inaanu faleebadaasi kaa bixin hadda ma garatay laakiin haddii ay wax disho way ku difaacaysaa qabyaaladii dhinaca markan ka eegno waa soo koobi waxaa qayb ka ah kala qaybsanaanta iyo muranka jira ee dadkeenu ay madaxa iskula jiraan ay isku naceen ay ku kala fogaadeen waa qabyo sharci xeerarka intay noo samaysanaa qof waloo inaga mid yihiin amba xildhibaan ha noqdo
anuu iska saari maayo dhinac buu ka akhriyaa dhinacaas waa dhinaca dantiisa ah in shuruucdeenu inoo dhammaystirmaan oo imika waxay noo dhammaystiran xeerkii doorashooyinka madaxweynaha iyo waxay noo dhammaystiran wakiiladoo kale maanta halkan xanuunaysa waa xeerkii ururada aniga mukhtaris lama fahmi karno walaalkeen ka gallaa horta hadda ma garatay waxaa laga yaabaa idinkuna inay tiraan wal xildhibaanada doorana maxaa ahaayeen laakiin barasharo kaloo na riixayaa jira inaan ka bislaanaa loo baahanya qodobka kale ee aan isleeyahay waa lagu yareyn karaa waxaa kow ka ah ma nihiin ummad wax ka barata khaladaadka ma maanto keliya hataa doorasho laisku qabsaday laba nidaam bay somaliland soo martayoo mid waa kii ku dhisnaa habkii qabaliga ahaa ee 2000 wixii ka horreeyey kaasi haddii khilaafka doorashadu uu soo yimaado waxaa xallin jiray odayaasha iyo gurtida laga soo gudub oo loo diga rogay nidaamkan casriga ah imika xisbiyada badan doorasho aan la isku qabsan oo murankeegu taagnin ma jirto marka khaladaadka laftirkiisa waxba kama barano waxa laga yaabaa 10 sano ka bacdi haddii ururadan imika la doonayo in la furo ay dhamaadaan waqtigoodii ururo kale in haddana xaaladda maanta taagan la soo istaago waayo waxba khaladaadka kama barano haddaad imika wadamadan carabta tagto oo taxi raacdo taximeterku kuu daaranayaayo dee meesha rabti ku geynaya hadduuba ku arko inaanad garanaynin kula warwareegaya laakiin haddaad khaladkiisa ku qabato lagama yaabo in mar dambe uu kugula soo noqdo war inaga beertii awowgaa kugu qabsa awowga ayaa adeerkaas ku qabsadeen ayuu inankiisii kugu qabsanayaaba marka waa mushkilad taagan kala qaybsanaanta kale haddaan qodobka koowaad kusoo gabagabeeyo komishanka doorashooyinka qaranka inay shaqadooda joogteeyaan oo iminka diiwaangelintoo kale marka loo baahan yahay waqti baa loo cayima inay shaqadan xafiiskan noqoto shaqo socota oo qabyatirkeedu mar kasta ay naga hadho ayaa ka mid a waxyaabaha kala qaybsanaanta keenaya waayo murankii baa soo degdegaya horta markaan isweydiinano cid guulaysanaysa iyo cid khasaaraysa mar kasta waa ina daanweyne waayo noloshaa tartanu jooga kulba waxaa lagu jiraa ama siyaasad ha aado amba ganacsi ha aado ama aqoon ha ahaatee horta waa lagu tartamaya haddiiba tartan yimaadana kolley ciidan baa guulaysanaysa laakiin su-aasha meesha ku jirta waxa weeye somaliland dee maanta inankii dhashay maalintii calanka la taagay waa 30 jir wuxuu ku garaadaystay ama jaamacada kaga baxay isagoo doorashooyina dhacayaan murano jiro murankana uu qayb ka yahay bulshadeennana waxaa jira dad liida oo aqoon-yahana anu maanta ma tilmaami karo meel inoo bisil hadday tahay culimo hadday tahay maxay ahaydey siyaasiyiin iyo hadday tahay ganacsato oo ka daacad ah halkayna xanuunaysa ee bulshada bugta marka horta danihii shakhsiga ahaa ee qof kasta riixayay ayaa kala weyn waxaa meesha ku jirta xaqiiqda iyo runta markaynu isdul taagno waxaynu ka shaqaynano iyo waxaynu doonanaa waa kala laba somaliland qurux badan baynu doonanaa somaliland laisjecel yahaynu doonanaa waynu naqaanaa sidii somaliland ku qurux badnaanayso mase samayno qofka dibadda markuu joogo iyo marka uu gudaha joogo kala duwanaanshaha uu leeyahay ayaan idin sawiraya anaga iyo mukhtaar waxaanu nahay mudanayaal golaha wakiiladan ka tirsannahay iyo faysal iyo shalay markii aanu banaanka joognay waxaanu ku ololeynay in systemka dawladnimo uu damaanad qaado qofku waxa uu xaq u leeyahay inaan baa ku imanaya wuxuu ku oranayaa wani wadigiisa ku ololeeyay annagu ku soo codeeyay bala shaqan hay bal shaqaygi war wuxuu xaq u lahaa horta uma damaanad qaadi karaba haddaba garatay waayo xeer si dhaba ugu damaanad qaaday ayaan jirin tusaale ahaan haddaad wasaaradda maaliyadda ka shaqayso agaasimo tahay oo agaasimo waaxeed aad tahay oo tii ilaahay kuu timaado waxaa jira inaan wasaaraddan ka shaqaynayo 20 sannadood jooga ku qanci maayo inuu aqoontiisa iyo khibraddiisa iyo waaya aragnimadiisa fuulo sida systemka dawladnimo fasaxayo laakiin muxuu ku qancaya soo kaxeeyo aqalkiisii
isagoo masteraba waxa laga yaabaa markay wasaaradda soo galayaan xitaa inuu daba socdaba laakiin hay'adda UNDP la yidhaah ama organisationada kale haddii position shaqo ka bannaanaado inankeena aqoon-yahankii aqoontiisu fuulaa oo hadduu waayo iyo haddii uu helaba uu ku qanacsan yahay marka ma waxaan caawa iska dhaadhicinanaa waxa institution yar oo inaga dhex shaqaynaya uu ku guulaystay ayay dowladnimadeena ku guulaysan kari laada no way waxaynu u baahannahay ilmaadeerayaal inta aynu afka ka hadlano inaynu ficilka ka hadalno caloosha ka hadalno daacadnimada ka hadalno ma jiri karno boqolaal sano runtii laakiin waxaynu samaynaynu qabanaa jiri karaa maalin dhowdan meel tegay dadka madow lagu dhisayo Bristol ku yaala bridge dadkii dhisay 300 sanadood ka hor bay rawaxeen laakiin bridge-kii baa jira anu ma baqaan wax alla waxaan ugu tagi karaa ma gabayadaydan ugu tagaya jahraawi baa buug dhan ka tagay hada ma garatay marka waxa loo baahan yahay in aynu sidan si ka duwan u dhaqanno siyaasiyiintuna waxa ummadda ka qaldama iyaga qalda waxaasna waa isku muuqashadooda iyo isriixii xooga waa dhab وحقيق إن اللي بيستيتن مدنه أي فديان قلها وكيل ضوء الرقي مركزنا على جايجو أمني مدن اللي الديمقراطية دين اللي وحي ندون اللي أرنتاسي وحي نقولها وجه جبح بالحقيقة هدي أي دمركو قلها أنا لا تشوف أنا ملها اللي اسمه ديلين بقى oo inaan halkaas soo fadhido waar xisho ku tiraa ayaa kaaga filan feer duuban lahayd bayna dib u celiso dumarka qaranka tabaya oo la xijcelada tabasa oo waxa tabaya morality-ga xitaa bulshadeenu waa bulsho dumar jecel laakiin dumarka siday u jecel yihiin inay dumarku ugu shaqeeyaan ma jecel runtii waa dood kale oo dheer inaan isweydiin karno in caqabado dhaqan oo marba marka ka sii dambeysay si suulaya ay dumarku hor taagan yihiin waa dood kale oo dheer laakiin waa la og yahay in dumarku iminkaba kaalmaha kaydka ku jiraan anuu shakhsiyan ma jecli kayd waxaan jeclaynaa safka hore fadhiyaan maalin kale oo Somaliland san ka qurux badan tahayna quruxda Somaliland ee xilka u haysa ee waliba ku matasho golaha inay kow ka yihiin ayaan rajaynayaa inta markaan inta kaga yimaado waran ka gaarsiinana wixii aan ka tagayna muqtaar baan u deynaya kulli su'aashii ahayd ina ku weydiiyay markaan u yimaado runtii golaha wakiilada waxa jiray mooshinkaasi waa lagu kala qaybsamay in lagu kala qaybsamo hay'ad maaha waayo markii horeba laba aragtiyood ayaa iska soo horjeeday laakiin laguma kala qaybsanayn in xeer 91 iyo xirfoodin wax ka bedeliyo kaabis lagu sameeyo waxaan aaminsanahay murankan imika soo dhex galay qaabkii hawsha loo galay ayaa horta keenay in lagu kala qaybsamo haddaan markaas sii daadago oon xalka u imaado ama siduu xalku caawi yahay in bini'aadamku runta isku sheegaan ba fiicane maanta waxaa dhacday in komishanka doorashooyinku qaranku ay soo saareen warmurtiyeed ay ku cadeynayaan oo ay ku mudeynayaan farsamo ahaan inay doorashada ku qaban karaan muddo 9 bilooda iyagu waxay leeyihiin saan aaminsanahay soo jeedin laakiin cidda muddo kororsiga sameynaysa iyadoo de soo jeedinta ka tusaale qaadanaysa waa golaha guurtida culayska farsameeyay mid wuxuu saameynayaa stakeholderskii oo dhan hadday tahay xisbiyadii iyo hadday tahay madaxweynihii waayo madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay muddo kororsi waqtigan marka la eego si aan de leadership gaab u dhicin xisbiyada laftirkooduna waxay u baahan yihiin liisankoodii laakiin haddaba marka la eego muddo xileedka madaxweynaha iyo liisankiyo kaabiga ay nasaaray mid waa dastuuriyo waxa loo hayaa golaha la yiraahdo guurtida laakiin maalintii aanu maxkamadda isku haysanay haddaan xeerka wax ka bedel ku sameyn lahayn waxa suuragal noqon lahayd in aanu wax ka bedeli kari lahayn xisbiyada horta maanta waxay noo cad oon la isdiidsiin karin in warqadda ay komishanka doorashooyinku soo saareen ay caddaysay waqtiga doorashada madaxweynaha ay qaban karaan liisankiina xisbiyadu ka dhacaya cidda gelaysaana waa xisbiyo bal waxa la isku kay waafajin karaa
cidda gelaysa marka waa muhiim in la fahmo in doorashada madaxweynaha ay ka soo horeyso ururada